waan idin salaamayaa magacaygu waa Ibraahim Aadam waxaan rabaa inaan muuqaalkan idinkugu soo gudbiyo erayo si xiiso badan loo fasiray waa erayo kamid ah kuwa aan sida joogtada u isticmaalno oo si xiiso leh loo turjumay ama si xiiso leh u turjumay nin filosof ahaa eray kastana waxa uu siiyay macno cidii fahamta leh macno iyo xigmad fog midka ugu horeeyay wuxuu ka dhigay sigaarka waxa uu yiri waa duub buuri ah ama tubaaka ah oo dhanna dab ka baxayo dhanka kalena nacas afkiisa ku hayo ereyga wada hadalna waxa uu yiri waa keega oo loo qaybsado saami qof kasta uu u qaato in uu isagu qaatay qaybtii ugu badnayd la soco ereyga la soco waa erey muujinaya in aad haysato wax badan oo aad tiraahdaa ama aad sheegtaa waxa uu yiri waayo aragnimadu waa khaladaadkii intii aad noloshaada hore u soo gashay oo la ururshay si dib looga faa'iideysto sidoo kale ereyga filosof waa miskiin noloshiisa oo dhan silic ku dhameystay markii uu dhintaana halyeynimo lagu xasuusto ama qof aan waxba u tarin oo bilaash kaga faa'iideysto ereyadiisii ereyga diblomacy waa qof ka doonaya in aad naarta qabato ama naarta aad gasho laakiin kuugu dhigaya hab aad xiiseynayso sugina kari la'adahay inta aad ka gaadhayso ama aad ka galayso maamule marka aad leedahay maamule waa nin markii aad goor hore timaado ama waqti hore aad timaado dib u dhaca marka aad habsaanta ama aad soo daahdana soo kal laha waa cajiib maamula siyaasi waa nin doorashada ka hor si uu kalgacal kugu muujiyo gacanta ku lulaya ama ku laalaadinaya doorashada kadibna kalsoonidii aad u haysay lulaya ama laalaadinayo ereyga saaqid waa arday ugu horeyn lahaa uguna sareyn lahaa fasalka haddii aanay arday kala joogi lahayn guurka waa mawduuca kaliya ee dhammaan dumarka isku waafaqsan yihiin wanaagiisa ragga oo dhanna ay isku khilaafaan laakiin waxa uu yiri dumarka waa makhluuqa ugu hadalka badan nolosha haddana qariya kala bar waxa ay og yihiin waa cajiib waxa uu yiri cajsiga wuxuu ku tilmaamay waa qofka oo raaxo doona isaga oo aan daalin adiga oo hurdo ka soo kacay oo raaxaystay bad haddana waxaad rabtaa inaad sii raaxaysato caajiska la iska dhaafo dhakhtarka waxa uu yiri waa nin qaata qarashka iyo sumcadda daweynta qofka iyada oo ay runtu tahay in Allah subxaanahu wa ta'ala daweeyo quruxda wuxuu yiri waa sawir kaamiradeed oo isbedelka waayaha iyo waqtigu ka dhigaan sawir gacmeed waxa uu yiri inanta quruxda badan waa ta dhexda yar ee caqliga badan waan ku raacsanahay waxa uu yiri sayga waa nin gabadhiisa ama xaaskiisa ka doonaya in ay yeelato tilmaamo ku dayasho mudan isla markaana ay isaga qaladaadkiisa isaga indhatiri lahayd ugana cafin lahayd qaareen ama abukaate waa nin difaacaya lacagta qofka wakiishay si uu qayb uga helo hunguriba u geeyay dhakhtarka ilkaha waxa uu yiri waa nin risiqiisa kala soo baxaya qof kale afkiisa dhima lahan amba sidaas hadda lacag leega qaatay diblomacy waxa uu ku tilmaamay waa nin xasuusan dhalashada xaaskiisa laakiin da'deeda ilowsan marka la ku celi waa nin xasuusan dhalashada xaaskiisa laakiinse da'deeda ilowsan halkaas maxaad ka fahantay qofkii caqli leh waa uu fasiran karaa khibrad waxa uu yiri waa udub dhaxaadka dadka caqliga leh ay ku dhisaan noloshooda calool xumo waa foolkaani ka holcaya laabta qofka wariyaha idaacada ama telefishinka waa ruux dadka oo dhan ku yiraahda dadkaygii aan jeclaayo isaga oo aan hal qof ka garanaynin ereyga raaligelin waa baasaboorka lagu maro qalbiga dadka dhexdiisa dhunkashada ama macsiinta waa hadiyada kaliya ee isla markaa la ina siiyo aynu si dhaqso leh ugu abaalgudno ninkan uu bahdilay wuxuu yiri basaas waa nin noloshiisa oo idil u huray inuu qof kasta ka daba nadiifiyo xamaamka ama musqusha uu galo waa cajiib waxaan jeclaystay inaan intaas idila wadaago waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan sidoo kale haddii aad muuqaalkan ka heshay fadlan like buttonka noo taabo waad mahadsan tahay waxaan ku leeyahay ku raaxayso noloshaada peace